Waa kuma Yaajuuj iyo Wamaajuuj? Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa laba qoom oo ka tirsan bini'aadamka. Ma ahan jini, mana ahan xayawaano kale, ee waa dad ka mid ah basharka. Waxay ka soo faracmeen duriyadii Nebi Aadam iyo Xaawa, nabadgelyo naxariis korkooda ahaatee. Sidoo kale waxay weeye duriyadii Nebi Nuux, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Maadaama Eebbe ee ka aqbalay ducadii Nebi Nuux inuu halaago dhammaan gaalada, sidaa awgeed dadku dhammaantood waxay ka soo jeedaan farcadii Nebi Nuux, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Nebi Nuux waxa uu dhalay 3 wiil oo kala ah Saam ibnu Nuux oo ah aabbaha Carabta, Xaam ibnu Nuux oo ah aabbaha dadka madow, iyo Yaafid oo ah aabbaha Turkida. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa qowmiyadda ka soo jeeda Yaafid ibnu Nuux. Astaamaha Yaajuuj iyo Wamaajuuj. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waxay shabahaan dadka ay isku jinsiga yihiin ee Turkida ama Mongooliyiinta. Waa dad indho yar, sankooduna kamas ayuu leeyahay, timahooduna jaale gaduudan ah, weji ballaaran leh oo la moodo maraq. Waxaa la sheegaa inay yihiin dad aad u dhaadheer ama dad aad u gaagaaban oo dhago dhaadheer leh. Midkood intaanu dhammanin waxa uu tagaa duriyadii oo gaadhaya 1000 qof. Hase ahaatee, sifooyinka ma ahan kuwa sugan ama saxiixa. Sida xaqiiqada u dhawan waxa weeye inay yihiin dad shabaha basharka, maadaama ay sugan tahay inay yihiin ibnu Aadam. Waxay riwaayadaha saxiixa ah tilmaamayaan inay yihiin qoom xoog weyn oo aan la hor istaagi karin, oo la iska dhicin karin. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa dad aad u tiro badan, waxaana uu daliilay in la tiro badan yihiin, sidoo kalena ku abtirsadaan duriyadii Nebi Aadam, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Xadiidka ku soo arooray Bukhaari iyo Muslim waxa uu yidhi rasuulkii Ilaahay, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, Allah waxa uu odhanayaa maalinta qiyaame, Aadamow kac oo soo saar cid duriyadaada galaysa naar. Waxaanu odhan, Eebbo, waa kuma cidda galaysa naarta? Kii kastaba ka soo saar 999 mid keliya janno ayuu galaa. Markaas ilmaha yar ceroobay, tii kasta oo uu leh dhicinaysa, waxaana arkaysaa dad oo waalan, mana aha kuwa dhab u waalan, ee cadaabta Eebbe daran. Waxay dhaheen, rasuulkii Ilaahayow, oo yaa noqonaya midkaas? Waxa uu yidhi rasuulkii Ilaahayow, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, bisharaysta midkuu idinka waayey. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa 1000. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa dadka dhulka fasahaadin doona. Sidaa awgeed ayaa ninkii dhulka marayay waa Dulqarnayn, ee nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, uu la kulmay qoom ay ka adag tahay hadalka qoomkaas oo ka cabanaya Yaajuuj iyo Wamaajuuj. Waxayna ku dhaheen, waxaan ku siinaynaa kharash ama mushaar, ee Yaajuuj iyo Wamaajuuj nooga samee xidhiidh ama nakala xidh, waayo dhulka ayay fasahaadinayaan. Markaasuu Dulqarnayn ka aqbalay cabashadoodii, oo waxa uu sameeyey 3 dheyn gadaar ah, kaas oo ay dhexeeyeen 2 buurood dhexdooda. Waxa uu Dulqarnayn dalbaday birta xidhiidha iyo naxaasta si uu ugu sameeyo xidhiidhkii. Markuu dhammaystiray xidhiidhkii, ma aysan awoodin Yaajuuj iyo Wamaajuuj inay ka soo baxaan. Waxaana yidhi, Eebbe ayaa mahad iskale. Markay gaadho maalintii Ilaahay ugu talagalayna in ay burburtaan, way burburi. Xadiiska kale ku sugan in sadkii iyo xidhiidhkii Dulqarnayn ku awday Yaajuuj iyo Wamaajuuj furmay, sidaa laga warinayay Zaynab bintu Yaxsi. Maalin ayaa rasuulka Ilaahay, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, u soo galay isagoo warwarsan. Waxaanu yidhi, Ilaahay mooye ilaahay kale ma jiro. Hoog waxa ugu sugan carab shar soo dhowaaday. Waxaa la furay maanta dalool sankii Yaajuuj iyo Wamaajuuj. Sidaas oo kale waxaa isku qabtay suulka iyo farta. Murdisada Zaynab bintu Yaxshi waxay tidhi, rasuulkii Ilaahayow, ma waxaan halaagsamaynaa ayadoo dadka wanaagsan nagu jiraan? Waxa uu yidhi, haa, haddii xumaantu badato. Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa qodaan gidaarka xidheen ah maalin kasta, balse ma awoodaan inay dhammaystiraan. Sida uu Abu Hurayra
ka wariyey rasuulkii Ilaahay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu yidhi Yaajuuj iyo Wamaajuuj waa qodan xidhan maalin kasta ilaamayo oo ay ku dhawaadeen inay arkaan ilays qoraxda markaas lagu dhahay noqda bari ayaan dhamaystiraynaa waxaan ku soo noqon ayadoo ka adag sidii hore Ilaahay laga dhadhayo muddadooda oo eebe doono inuu dadka ku sii daayo way qodayaan ilaamayo ay ka arkaan ilays qoraxda waxayna oran noqdaan waxaan qodaynaa bari insha Allah wayna soo hadhayaan wayna ku soo noqon sidii ay tageen way ka qodayaan waxayna ku soo baxayaan dadka Imaam Axmed Yaajuuj iyo Wamaajuuj waxay soo baxayaan marka calaamadaha qiyaama qaar badan la arko sida soo bixista Dajaal Mahdi iyo soo digista Nabi Ciise nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sidaan ognahay Nabi Ciise waxa uu dilayaa Dajaal cawar muslimiintuna way ka guuleysanayaan Yahuudi taageeraha Dajaal xiliyadaas ayay soo baxayaan Yaajuuj iyo Wamaajuuj ayagoo jaw sareysa kasoo degayaan waxayna soo marayaan badda la dhahaa Bariya waxayna lacaayaan biyaheeda ilaa midkoodoo dhahayo meeshaan bari ayay dad ahaan jireen dadku waxay galayaan dhufaysiyo lahnayaan cidii kasoo horbaxdo ee beer dad iyo xoolaba Nabi Ciise in la soo socota waxay fuulayaan buur waxay barayaan Ilaahay inuu ka horeeyo qoomkan aan waxba reebin kadibna Yaajuuj iyo Wamaajuuj waxay cirka ku turayaan labab waxayna lababka soo noqonayaan ayagoo dhiig leh markaas dhahayaan waan adkaanay dadkii dhulka joogay iyo cirkaba joogtay markaas Ilaahay u soo diraya mid ka mid ah ciidankiisii sangaale cayayaan yar oo sanka iyo dhagaha ka galaya dabadeedna mar kaliya ay wada dhimanayaan Nabi Ciise nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa amray mid ka mid ah saxaabadii inuu soo eego waxa uu ka dhacay Yaajuuj iyo Wamaajuuj ninkan ayaa baxay oo soo eegaya waxaanu arkayaa dhulkii oo meydkoodu buuxiyey dabadeedna Nabi Ciise iyo saxaabadiisa way soo baxayaan waxayna eebe ka baryayaan in meydkooda laga kaxeeyo dhulka waxay eebe soo dirayaan shimbiro qoorta awrta leh markaas bay jidayaan meydkoodana kuna darayaan badda kadibna roob ayaa da'aya oo eebe ku nadiifinaya dhulka fiiro gaar Yaajuuj iyo Wamaajuuj waxay ka soo urureen Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiiska rasuulka waxayna ka mid yihiin qaybka sida runta ahna lama garanayo meesha ay ku nool yihiin waxayna soo baxayaan xilliga Ilaahay uga talagalay cidii dafirta xaqiiqada Yaajuuj iyo Wamaajuuj istaayay qisooyinka Allah ayaa ka waramay qofka muslimka ahna Ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu rumaysan yahay eebe waxa uu leeyahay suurada 21 الأنبياء آية 96 حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج ومن كل حدب ينسلون إن كان غفري سودين ياجوج وماجوج يقولون جاو سريسا دمانتين يكسو دقدقين